محمد maanta waxaan ka qalin jabinayaa jaamacadda Bariga Afrika farceeda magaalada Galkacyo aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay inaan macna heerkii aan ku taami jiray inaan soo gaaray taas waxa ii sii dheer inaan usbuuc walba safar u soo gali jiray jaamacadda anoo ku imaan jiray magaalo kale oo loo yaqaan magaalada deegaanka cagaaran usbuuc walba aan safar soo gali jiray sida Jimcada iyo Khamiista kale inta waxa ii sii dheer anoo 5 bari shaqeynaya oo adana caqabaduna aad u adag ila soo maray waxa kale oo farxad gooni ii siilay inaan galaaskayga kaliya gabarka ahaa oo wiilal bas aan dhigan jiray taas macnaha kalsooni siisa inaan jaamacadda sii wado oo si dhabar adaygo marka qofku macnaha ma fududa inaan safar soo gasho usbuuc walba adoo gabara oo adana shaqeeya macnaha culaysyadu way kala duwanaayeen marka waxaan si Kawsar waa la gaari karaa meel walba oo ku taamtid marka waa inaad aad iyo si dadaasho si dhabar adagta maanta kale aad u heshin يا والله ما غفرت كيلومتر ما 60 كيلومتر عمل ويغلاس ديغانك عقارن بوستي ما شاء الله كوثر waxaad jaacada uga tagtay deegaanka cagaaran fasalkaagana kaliya waa gabarka bal adigu arintaasi maxay kugu dhalisay marka wallahi waxay igu dhalisay waxay ugu dhalisay qof walba wuxuu ku hamiyay inuu gaari karo 12 gabdhood baa isla bilowna galaas markay ka kala tagtageen baa waxaan soo Kawsar adiguna ha ka tagin wiilashaas bartay ku jab waxay maanta iyagu waxay meesha maraan baa mari kada markay la wiilaayo iska aaminay wiilahan baa iska aaminay Kawsar afarta sano waxbarashada ka taageeray halkan fariin uga diray waxay ka taageerayeen marka koowaad aabahay taliya Cawil Maxamed oo taliya taraafikada gobolka Mudug waxa kale oo iga taageerayay hooyaday macaan asal Ismaaciil oo aadan ma iga taageeray aniguna waa shaqaystay oo wixii waalidku qaban waayay may hospitaalka deegaanka cagaaran baa ka shaqeeya caafimaad baa bartaha ma sha Allah wax ku diinaya waxa magaalada ku soo badanaya dhakhaatiir ajnabi ah oo dad badan magaalada Galkacyo ku laayay bal adiga ka dhakhtar ahaan maadaama dhakhtarada hadda noqotay maxay ka soo horjeedaan waa gartay ajaanibta la keenaya ka warayada ajaanibta waa ka soo horjeedaan waxa laga yaabaa shahaadad buga inay soo qaataan oo iska dhigaan macna dhakhaatiir camal iska dhigaan oo shahaada markii hadda Soomaaliya waxa keenaya waxyaabaha ugu muhiimsan oo macnaha ugu daran oo keenaya waa dawlad la'aanta hadda maanta dawlad aan haysan lahayn shahaada buga wadanka lagu soo galeen ajaanib waxoogaa kiish lacag inta qaataan kama soo loofeen dadka la leeyahay macnaha